السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا وناكسن داود الكسور دوادا 10 كيني سدحاد iyo family planning 10 kan 10 kii ka horeeyay waxaanu kaga soo hadalnay tala bixinta family planning ka inagu u qaybinay saddex qaybood mid shakhsiya iyo mid qoysa iyo mid group ah sidoo kale waxaanu ka soo hadalnay talaabooyinka la isticmaalayo marka qofka tala bixiyaha uu sameeyo family planning ka oo hab la yiraahdo gather ka sameeynay waxaan jeclaan lahaa inaan xasuusino maadaama 10 kan uu gaari doono dad kala duwan isla markaana ay noqon doonaan qoysas ka faa'iideysta iyo sida oo kale arday labadaba inuu noqon doono waxaan isku dayayaa inta 10 ku socdo inaan qalabba sidaan isleeyahay uga faa'iideysan karaan inaan uga faa'iideyno marka ay noqoto habka dabiiciga ama natural family planning ku maadaama marka hore family planning ka ama qorsheynta qoyska haddii si kala dhino kala dheereynta uurka markaanu ka hadlayno aanu soo qaadanay laba kaliyaata oo ahaa mid dabiiciya iyo mid aan dabiici ahayn waxaan markaas horumarinaa habka dabiiciga ah ama natural family planning method baa la yiraahdaa NFP habkan wuxuu noqonayaa hab dabiici ah oo aan la isticmaaleynin wax dawooyin ah dawooyin markaan leeyahay kiniin lama isticmaalayo irbadna lama isticmaalayo sidoo kale lama isticmaalayo waxyaabaha kale ee barrier methodska ah ama cinjirada galmada loo isticmaalo isagana lama isticmaalayo waxa kaliya ku saleysnaan doona hab dabiici ah isla markaana aan faahfaahin doono waxaan nidhi fikir ahaan family planning ama habka dabiiciga ah waxa weeyaan ee loo yaqaano NFP gu waa sidanoo waa hab la isticmaalo natural physiological change and symptoms to identify the fertile and infertile phase of menstrual cycle waa hab lagu aqoonsanayo ama lagu garanayo oo la isticmaalayo isbedelka ku yimaada jirka ee dabiiciga ah sidoo kale laguna aqoonsanayo marka ay tarani jirto iyo marka ayna tarani jirin si guud waxaan u oranaynaa physiological kaas wuxuu noqonayaa ama isbedelka jirka ku imanaya calaamadahaasi dhiigga inay gabadhu hesho ayaa ugu horeeya sidoo kale waxaan eegi doonaa xilliyo iyo xaalado ka dambeeya hadaba sida aynu sheegayno ama waxa noqonayo fertility based awareness method ku qofku inuu ku feejignaa ku baraarugsanaado xilliga uur la qaadi karana ama habkaas wuxuu noqonayaa sidan marka hore waxaan weydiin doonaa su'aasha sidee ay suurtagal u tahay ama macquul u tahay in la aqoonsado marka ay haweeneydu safe tahay macnaheedu aanay uur qaadi karin weeyaan haddii ay galmo samayso when pregnancy is not possible marka aan uur macquul ahayn macnaha waxa loo jeedaa haddii haweeneydu ay galmo samayso marka ayna uur qaadi karin iyo marka labaad oo noqonaya when she is unsafe period xilliga ayna gabadhu ammaan ahayn ama ay uur qaadi karto haddii ay galmo samayso labadaasaan kala saari doonaa haddii ilaahay ka dhigo waxaan leenahay there are physiological changes during menstrual period waxaa jira isbedelo yimaada xilliga uu jiro dhiigga mensesku that help to distinguish decide taasoo ka caawinaysa inuu qofku go'aamin karo ama uu garan karo between unsafe period oo ah when pregnancy is possible marka calashan ay ku kala garan karo ama haweeneydu ay ku kala garan karto farqiga u dhaxeeya marka ay tahay unsafe iyo marka ay tahay safe macnuhu waxa weeyaan when pregnancy is possible marka ay haweeneydu uur qaadi karto safe period waa maxay kaasi waa when pregnancy is not possible marka ayna haweeneydu uur qaadi karin waxaan marka halkaa leenahay isbedelka yimaada xilliga dhiigga caadada haweeneydu ay ku jirtaa waxay ka caawiyaan inay go'aansan karto ama ay go'aamin karto ay garan karto farqiga u dhaxeeya ama inta u dhaxaysta waxyaabaha u dhaxeeya inuu noqdo waa maxay unsafe period oo xilliga gabadhu aanay ammaan ahayn ay tahay macnaheedu when pregnancy is possible inay haweeneydu uur qaado iyo marka noqonay safe period oo ah when pregnancy is not possible marka aanu uur macquul ahayn inuu yimaado macnuhu waxa weyn safe ku waa xilliga aanay haddii ay galmo samayso gabadhu uur qaadi karin
unsafe waa marka ay gabadhu haddii ay galmo samayso uur qaadi karta wey macnaheedu. sidaa awgeed waxaynu kala tilmaami doonaa xiliyada. haddaba in what way waa habkee ama waa dariiqee ka natural family planning method preventive pregnancy ee habka dabiiciga ama naturalka ahi uu uurka ugu hortegi karaa waa sidee, waa habkee baan odhanaynaa. waa weyge ama waa habkee family planning ka dabiiciga ahi uurka ugu hortegi karo. natural family planning method preventive pregnancy by making, habka dabiiciga ah ee family planningku wuxuu uurka ka hortegi karaa by making it possible for the egg and sperm to meet. waxaa la sameynayaa oy noqonaysaa waa marka ayna macquul ahayn ama ay impossible tahay for egg and sperm to meet, inay kulmaan eggii ama ugxantii iyo spermki inay kulmaan, ugxantii iyo biyihii inay kulmaan marka ayna macquul ahayn ayuu habkani ka hortegi karaa uurkii. hadaynu halkaa dul istaagno macnuhu waxa weeyaan haddii galmo la sameeyo xilligii gabadhu ay ahayd safeka ama ayna suurtagal ahayn inay uur qaado, ma kulmayaan oo ma isma helayaan ugxantii haweeneyda iyo spermtii ama biyihii ninku isma helayaan. macnuhu waa sidaa. haddaba however this method, si kastaba hatee habkani aynu ka hadlayna ee naturalka ahi depend on awareness, wuxuu ku xidhan yahay ku baraarugsanaanta ama feejignaanta and ability iyo sidoo kale awoodda of the couple ee qoyska to identify si ay u aqoonsadaan the fertile and infertile phase, wejiga ay uur la qaadi kara ama tarani jirto iyo wejiga ayna jirin of each menstrual cycle, xilli caadeed kasta ama xilli kastoo gabadhu ay hesho dhiiggii caadada. si kastaba ha ahaatee habkani wuxuu ku xidhan yahay ama uu dependi ku yahay on awareness and ability, ku baraarugsanaanta iyo awoodda qoyska ee ay ku aqoonsanayaan wejiga ay tarani jirto ama xilliga ay jirto iyo xilliga ayna jirin of each menstrual cycle, mar kasta oo uu dhiigga caadadu yimaado ama uu dhiigga gabadhu hesho. advantages waa maxay? haddaba faa'iidooyinka uu leeyahay habkani waa maxay? faa'iidooyinku wuxuu noqonayaa ama advantages waxay noqonayaan sidan: natural family planning method are generally the preferred contraceptive method for women who do not wish to use artificial method of contraception for reasons of religion or who due to norms and might fear other methods. waxaynu odhanaynaa natural family planning ama habka dabiiciga ah are generally guud ahaan waxaa doorbida oo loo doorbidaa contraceptive method, hab ah in uurka lagaga hortago oo ay isticmaalaan haweenku who do not, waa taas oo aan rabin ama aan filaynin to use artificial method inay isticmaasho habka aan dabiiciga ahayn ee lagaga hortago uurka. sababaha marka ay u diidayso inay isticmaasho habkii aan dabiiciga ahayn haweeneydu waxay noqonaysaa reasonskani ama sababahaasi religions bay noqon karaa, religion wuxuu noqon karaa diin oo diin baa u diidi karta, or waxay noqon kartaa due to norms and myths, inuu khuraafaad iyo sidoo kale qofku ka aamino fikro inuu ka aamino, iyo midda kale oo noqon karta fear other methods, cabsi haweeneydu ay ka qabto noocyada kale aan sheegnay inay isticmaasho waxyaabaha kale. marka faa'iidadiisu waa inuu isticmaalo qofkii ka baqayay inaanu isticmaalin chemicalskii ama artificial family planning qofkii aan isticmaalaynin ayuu bay faa'iido u tahay baan odhanaynaa. waxaa ku xigaya disadvantage, maxaa khasaare ah ama faa'iido darro ku jirta isticmaalka habkan. natural family planning method are unreliable. marka hore waxaan horta la iskuma halayn karo in preventing unwanted pregnancy, inuu ka hortegi karo unwanted pregnancy, uurkii aan la rabin in lagu xakameeyo waa unreliable, isku halayn male waa khasaaraha koowaad. sidoo kale it makes time, xilli ama waqti ayay qaadataa to practice, inuu qofku wixii barto and use them properly, isla markaana uu si sax ah u isticmaalo. waa habka dabiiciga waxaan ka hadlaynaa. weli laakiin maynaa kala saarsaarin hababka waxay yihiin dabiiciga ah.
which adds to their unreliability iyadoo sidoo kale aan kalsoonida isku haleyntiisu ay tahay mid aan jirin oo additional also natural family planning marka dhanka kalena family planning kan dabiiciga ah waa maxay do not protect waxa ka hortaga kuma aha oo ka hortag kama aho kama hortagi karo ama lagama hortagi karo against sexual transmitted infection risk cudurrada lagu kala qaado galmada sexual transmitted infection ka cudurrada ah ama cudurrada galmada lagu kala qaado kama hortago habka dabiiciga ah include human immunodeficiency virus waxa loo yaqaano HIV sida waxyaabaha noocaas oo kale ah kama hortago you should advise couple hadaba hadii aad tahay adeeg bixiye waxaad ku waanin doontaa oo kula talin doontaa qoysaska to use condom to protect against STI inay cinjirka galmada isticmaalaan hadii ay cabsi ka qabaan inuu labadooda u kala gudbo cudurrada galmada lagu kala qaado sida infectionka iyo waxyaabaha la halmaala aynu kormarno oo aynu soo koobno disadvantage ama khasaaraha uu leeyahay natural family planning waxaynu oranaynaa natural family planning inta badan waa unreliable oo la isku haleyn karo in uurkii aan loo baahnayn ama uurkii aan la rabin in laga hortago sidoo kale xilli ay qaataa inuu qofku practice karayo ama wixii barto uu garto isla markaana uu isticmaalo si sax ah sidoo kale waxaan leenahay waa inuu qofka isticmaalo which is the what unreliability maadaama wixii aan wax la isku haleyn karo yihiina waxa loo baahan yahay oo iyadana muhiim in ogaano in dhanka kale inuu yahay natural family planning kaasi mid aan ka hortagaynin ama aan lagu xakameyn karin cudurrada galmada lagu kala qaado ee loo yaqaano sexual transmitted infectionska haddaynu halkaas weydiin tusaale ka keeni karno odhan karno waa maxay cudurrada galmada lagu kala qaada ma qoysas qaba oo xalaal isku qaba cudurradii galmada lagu kala qaadi kara dabcan ha way noqon kartaa laakiin waxaan ka eegnaa dhanka fiican oo kaliyaatee haweeneyda infection baa ku dhici kara infectionkaasi wuxuu gudbi karaa ninkeeda sidoo kale ninka waxa ku dhici kara infectionkaasi wuxuu gudbi karaa haweeneydii haddii marka aan gogashii lagu kala tegaynin oo macnaheedu waxa weeyaan isla markaana ay xaaladdan jirto waxaan ku talinaynaa haddaad adeeg bixiye tahay waxaad ku talinaysaa adeeg bixiyo xilliga dadkaasi aad u la talinayso haddii mid ka mid ah qabo cudurka aanay gogashii ku kala tegi karin inay isticmaalaan condom inay isticmaalaan ama cinjirka galmada haddii aad tahay qoys caadiya ama qof sidiisa uga faa'iidaysanayana haddii uu jiro oo shaki aad ka qabto in lamaanaha mid ka mid uu qabo STI-gan infection baa ugu yare inuu waxa weeyaan u gudbin lamaanihiisa waa inuu isticmaalo cinjirka galmada inta waxaan oranaynaa waa faa'iidadii iyo khasaarihii uu lahaa waxa loo yaqaan natural family planning effectiveness inayna hadaba siyeebu effective u yahay uu waxtar u leeyahay the effectiveness of any method of natural family planning can vary from couple to couple waxay noqonaysaa kala duwanaanshaha alashan effectiveness uu kala duwan yahay natural family planning ama habka dabiiciga markaan ka hadlayno oo uu kala duwan yahay qoysaska way kala duwan yihiin and all these methods sidoo kale dhammaan hababkani are less effective uu yar yahay waxtarkiisu for couple who do not follow the method carefully qoysaska ama coupleska aan si taxaddi u raacin habkani faa'iidadiisu way yaraataa marka waxaan leeyahay effectiveness wuxuu ku xidhan yahay marba isticmaalka qoysku sidii uu isticmaala ayay ku xidhan tahay baan oranaynaa laakiin wax la isku haleyn kara ma aha haddaba waxaan oranaynaa types of natural family planning baa hadaba jira markii si guud baan u soo sharaxay laakiin hadda noocyadii baan kala gelinaa in order to understand the ways that natural family planning method can prevent pregnancy haddaba markaynu u eegayno fahanka iyo sidoo kale wayska ama hababka natural family planning uu noqon karo mid lagaga ilaaliyo ama lagaga hortago uurkii it is important for you muhiim ayuu ku yahay adiga to know each type inaad ogaato nooc kasta and it is techniques of use iyo hababka loo isticmaalayo imika waxaan soo sharaxnay guud ahaan natural family planning waxa uu yahay ama habka dabiiciga laakiin hadda typeski ama qaybihii baan kala geli doonaa oo noqon doona 3 qaybood there are 3 major classification of natural family planning methods 3 hab ayaan u qaybinaynaa ama 3 qaybood oo waaweyn ayaan u kala qaybinaynaa midka koowaad waxa la yiraahdaa periodic abstinence ama fertility awareness method periodic abstinence waxa weeyaan in xilliyada qaar
la iska daayo galmadii oo abstinence laga ahaado galmadii la iska daayo qoysku ay gogosha ku kala tagaan ama aanay samaynin wax galmaa macnaha magaca kale leedahay waa maxay waa fertility awareness inuu qofku ku feejignaado ama ku baraarugsanaado waxaan idhaahdaa xilliga ay uur la qaadi karo midka labaadna waxa weeyaan use of breastfeeding or lactation amenorrhea method in la isticmaalo nuujinta naaska waa dabiiciga waxaan ka hadlaynaa in la isticmaalo nuujinta naaska macnaheedu waxa weeyaan waa qayb ka mid ah family planning sidaa awgeed waxaa loo yaqaano lactation amenorrhea method waxa weeyaan waa in ilmihii naaska la nuujiyo si aanay u imaanin dhiiggii caadadu hadduu dhiiggii caadadu yimaado macnaheedu uurkina wuu iman karaa bay ka dhigan tahay habka saddexaadna waxaa loo yaqaanaa coitus interruptus ayaa loo yaqaanaa ama withdrawal or pulling out method habkan withdrawal ayaa la yidhaahdaa waynu soo sharaxi doonaa saddexda mid kasta halkiisa ayaynu ugu tegi doonaa waxaa isagana la yidhaahdaa withdrawal or pulling out waxaan u jeednaa in xilliga galmadii waa la sameynayaa oo gogoshii lagu kala tegi maayo laakiin waxaa la isku dayayaa in la sameeyo withdrawal ama la sameeyo in ninku uu xubintiisa taranka la baxo inta ayna ka imanin biyihii ka imanin ka ayaan odhanaynaa waa waxa loo yaqaano pulling out method observation of this change provides a basic for periodic abstinence method haddaba waxaynu ku salayn doonaa isbedeladan inagoo bixinayna basic for periodic abstinence methods marka ka hadlayna habka in la sameeyo jadwal ama xilli aan la sameynin galmadii marka waxaan dul marno waxaan odhanaynaa marka hore waxaan u qaybinay 3 qaybood oo waaweyn ay marka midka koowaad waxay noqotay periodic abstinence oo in xilliyada qaar jadwalka la sameeyo oo jadwalkaasi lagu saleeyo in galmadii la iska daayo xilliga ay suurtagal tahay weeyaan in uu yimaade midka kalena waa isticmaalka nuujinta naaska oo la joogteeyo exclusive breastfeeding bare 6 bilood sidoo kale coitus interruptus ama withdrawal or pulling out waxa weeyaan waa ninka oo la baxa xubintiisa taranka intuuna wax biyaha ka imanin si ay looga badbaadiyo in spermta ay gasho gudaha ilma galeenka ama gudaha xubinta taranka ah haweeneyda sida awgeed saddexda ayaynu mid kastaba dul istaagi doonaa ka horreeyay soo qaadanaynaa waxaan leenahay there are 3 common techniques used in periodic abstinence method waxaa jira 9 oo lagu magacaabo sidan mid wuxuu noqonayaa saddex qaybood ama 3 farsamo oo waaweyn ayaa jira oo loo isticmaalo habkan abstinence method-ka oo la yiraahdo sida tan soo socota Raytom ama calendar method basal body temperature iyo sidoo kale cervical mucus ama ovulation kala yiraahdo waxay noqonaysaa in la isticmaalo Raytom ama calendar method oo lagu xisaabtamo xilliyadii ama xilliga tusaale caadadu ay timaado la isticmaalo xilliyo in la iska daayo galmadii oo aan galmadii gogosha la soo imanin iyo sidoo kale in la isticmaalo basal body temperature oo lagu saleeyo in isbedelka heerkulka jirka iyo midka saddexaad oo noqonaya cervical mucus oo la yiraahdo in la eego ovulation days ama lagu xisaabtamo maalmaha ay suurtagal tahay ama ay diyaar tahay ugxanti sida awgeed mid kastaba haan dul istaagno kuwan saddex qaybood marka hore weeyaan in jadwal la isticmaalo in temperature jirka ama heerkulka jirka laga socdo iyo in la isticmaalo ovulation ama cervical mucus oo ah in dheecaan ka yimaada haweenka ayaama kadib marka uu dhiigu ka dhamaado aynu tilmaami doono markaa